السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل لي برنامج كيني تحناها يا إنه وجو مقعد درني الدنيا نقدر حصون فضلا أنت هاي نقدر نقول برنامج كا سبسكرايب يلايك صار مقالك ونسي شير قري هالقف وكم إذا أصحاب هذا وحينه هرو صوت المملي إن كون كنا يكون الله هيشرع عالم بدن وين نقدر حصون كاسو إنه خبرون عالم كشين كيا شياطين تا هذا حلقة دي هرو حينه مريسي يضو الله صدر ملاك كواس الله صدر شينك كدي مركا إنه عادي ربيكو كفريين waxaynu sidoo kale hore u soo sheegnay malaa'igtii oo ku guda jira hawshii loo soo igmaday inay heleen ibliis oo yar waa sida ay soo wariyaan waxa jira sidoo kale ibliis markii ay malaa'igtu heshay inuu toobad keenay kadib malaa'igtii ayaa u rafcisay oo ula kacday dhanka iyo samada ibliis halkaas ayaa uu muddo ku noolaa oo uu la noolaa malaa'igta oo alle uu ku caabuday waxa laga yaabaa in dadka qaar ay aaminaan ama ay isweydiiyaan inuu jinku ka mid ahaa malaa'igta la noolidda uu la noolaa laakiin inagu waynu soo sheegnay inuu jinka ka mid ahaa sidoo kale alla waxa uu quraankiisa ku yiri fasajadu illa ibliis kana min aljin waa ay sujuudeen malaa'igtii nabiyullaahi aadam ibliis oo jinka ka mid ahaa mooyaane waxa uu la joogay malaa'igta ilaa laga dhigay suldaanka samada dunyaha kadib waxa uu ilaahay doonay inuu uumo bani aadamka waxa uu 3 malag oo malaa'igtiisa ka mid ah u diray arlada isagoo u diriyay inay soo qaadaan sacab qura taas oo kulminaysay noocyada arlada oo dhan waxaana u horeeyay malaku jibriil سنة سبح مارلد ويديد هذا واحد كحيجي ملك ميكائيل سيدو كريس نوا يديد أرلد وحاود بيه ملك الموت مروا الدمعين وجد قلها وشي والله هو يجمضي أيا أرلد يديدي سويس نو جديدين وشبيه أمر كالله أو جت هاوشي الله هو يجمضي كدب حاوي مع الله والله وحاو كوري نفتنا هذا كقاعد دون بني آدم كان عن أمي كدب عيدي وحلولك حيدن كايا ملون حيسا جنة المأوى يسدر المنتهى يضع الله بقينيو biyo kor ku sugnaa muddo inta uu alle tagay haykalkii oo uu gacantiisa ku uumay ayaa uu muddo dhooba ahaa waxa laga yaabaa inaad mar un isweydiisay waxa basharka kala duway dhanka dabeecadda dhanka midabka habdhaqanka laakiin waxaad kala duwanaanshaha sabab ahaa kala duwanaanshaha carradii laga uumay haddaba sida aad hadda aragtaan durba waxa inoo muuqda inuu soo bilaamayo xifiltankii u dhaxeeyay ibliis iyo nabiyullaahi aadam kaas oo durba ka bilaami doona isla waqtigii uu alle tagay haykalka ama hab dhismaha jirkii nabi aadam markii uu alle ka faaruqay haykalkii nabiyullaahi aadam ayaa uu yiri inni khaliqun basharan min tin markaas malaa'igtii ku tiraabeen oo yiraahdeen ma waxa aad uumaysaa kuwa khariba dhulka oo fasahaadiya markaas alle yiri isagoo u jawaabay malaa'igtii inni a'lamu ma la ta'lamun 40 sano ayaa aadam uu ahaa dhoobo oo malaa'igtu eegaysay ibliisna yaabanaa oo ku dawaafay kaas oo mararka qaar qaraacay oo tumayay isagoo lahaa waa in ay jirtaa ujeedo loo oomay markaas afka inta uu ka galo oo dabada ka soo baxaya uu lahaa ka baqin alihiini waa mid daa'ima oo bilaa daldaloola laakiin sakani waa daldaloolo miidhan waanan jabin doonaa oo ka adkaan doonaa waxaana uu uga jeeday inuu lumin doono aadam iyo duriyadiisaba waa ka hadda uu u bilaamay lagdanka u dhaxeeya ibliis iyo aadamaha alle ruuxdiisii markii uu ku afuufay taas oo ku soo horeysay madaxa hadhowna ku dambeyn doonta marka la dhimanayo markii ay sanka mareysay ruuxdiisii nabiyullaahi aadam waa uu hindhisay malaa'igtii ayaa ku tiri alxamdulillaah dheh nabiyullaahi aadam alxamdulillaah uu yiri ilaahayna waxa uu jawaabay raxima rabbuk haddana marka uu arkay midhihii jannada ruuxdiina gaadhay calooshiisa ayaa waxa uu u hamuumay midhihii jannada waana sababta uu alle u yiri khalaqal insaana min ajal markii uu uumay alle aadam waxa uu masaxay dhabarkii aadam markaas dhabarkiisii waxa ka soo baxay waxa nafadhalan doona ee duriyadiisa ah markaasuu su'aalay ilaahay oo uu ku yiri kuwani maxay ahaayeen rabbiyo oo ilaahay ugu jawaabay waa ubadkaaga dhalan doona aadam waxa ishiisii soo jiitay mid kamid ah duriyadiisii aadna u soo ifaayay markaasuu ku yiri rabbiyo muxuu ahaa kaasi markaasuu alle ugu jawaabay oo uu ku yiri waa wiil kamid ah duriyadaada iman doonta dabada oo la yiraahdo Daawud markaasuu ilaahay mar labaad su'aalay waa imisa cimrigiisu markaasuu alle ku yiri waa 60 sano markaasuu nabiyullaahi aadam ku yiri ilaahay oo 40 sano uga qaad oo uga jar cimrigayga oo isagoo ugu dar kadib ilaahay ayaa malaa'igtii amray in ay u sujuudaan nabiyullaahi aadam waa ay u sujuudeen ibliis mooyaane markaasuu alle su'aalay oo ku yiri maxaad ugu sujuudi weyday aadam oo amarkayga u qaadan weyday markaasuu ugu jawaabay isagoo istifaacaya anaa ka khayr badan haddaba hadda uu buu cadeystay ibliis cadaawada uu qabo ilmo nabi aadam allana waa uu fogeeyay oo laga saaray nimcadii uu ku jiray waana uu nacdalay tan iyo maalinta qiyaamada waxaanu ballan qaaday in uu lumin doono ilmo nabi aadam haddaba inagu sheekada waxa aynu uga gol leenahay in aynu fahanno dagaalka ay ku wada jiraan
shaydaanka iyo bani aadamku. muuqaalkeenan maanta intaas ayuu ku eegyahay. muuqaaladeena xiga waxaynu ku soo qaadan doonaa oo muhiim ay tahay in aynu isla fahanno noocyada jinka uu u qaybsamo, farqiga u dhexeeya jinka iyo shaydaanka, iyo qaar kale oo badan oo muhiim ah. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdirashiid, waxaana soo turjumay sheekadan saaxiibka Khaalid Maxamed Xasan, Khaalid Suudaani.